السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين سلام يا أصحاب مرور بكحرن channel كيجا وين تجعله يا أصحاب مرور باللايك يكومنت يقروح ذا بدي يجنب حسا وانكو تجعله أذيك عن هذا الدعوة يا محايلي واحد يسيس غيب كم ده وقتي جا قاري فضلا هذا كم دهين أصحاب تان تجعله هاي نقص بير أو سبيس كرابستار جنبلا الكفرو سيأكوسو جاران مقالدة قروح ذا بدن أن سوقليو ما أنت واحد إني وذا مقال آدي آد وحسب بدن هذا وكبوجا شوعن waxaa jiri jiray nin boqor ah Allah subhanahu wa ta'ala waa boqor ah ninkaasi waxa uu yiraahday ama tuuladii uu joogay waxa uu sheegay in oo dadka isku wada yimaadaan maxaa yeelay waxa uu yiraahday waxaan idin weydiinayaa saddex su'aalood qofka ka jawaabo saddexda su'aalood waxaan siinayaa maalkayga iyo xoolahayga kala barbaan siinayaa balse waxa soo haray qofkii saddexda su'aalood su'aal kamid ah khaldan Soomahan surka ayaan ka jarayaa dadkii oo dhan ama culimadii meesha joogtay waa ay wada baqeen maxaa yeelay ma jiro qof jecel in la dilo cid ka jawaabta waa la waayay dadkii iyagoo si isku dhex jiro isla hadlay isku buuqaya ayaa waxa yimaaday nin reer baadiya oo u socday magaalada waxa uu arkay meesha lagu buuqsan yahay waxa uu u maleeyay in wax lagu qaybinayo waa uu yimaaday marka uu yimaaday wuxuu yiraahday meeshan maxaa ka jira waxa lagu yiraahday meeshan waxa taala saddex su'aalood haddii aad ka jawaabtid waxaad qaadanaysaa waxa soo hantiya balse haddii aad saddexda su'aalood su'aal kamid ah gaftid surka ayaa laga jarayaa ninkii reer baadiya waxa uu yiraahday diyaar ayaan u ahay in aan ka jawaabo saddexda su'aalood waxaan loo geeyay ninkii boqorka ahaana waxa uu yiraahday diyaar ma u tahay in aad ka jawaabtid saddexda su'aalood ninkii boqorka ahaa waxa uu weydiiyay su'aashii ugu horeysay waxa uu ku yiraahday sidaas ninkii reer baadiyaha waa uu fakaray isna waxa uu yiraahday sidan ninkii boqorka ahaa isna waxa uu weydiiyay su'aal kale waxa uu ku yiraahday sidaas oo cirka ayuu gacanta ku wareejiyay macna cirku gacanta sa ugu wareejiyay ninkii reer baadiyaha waa uu fakaray isna dhulku gacanta sa ku dhahay ninkii boqorka ahaa hadana dhulka ayuu gacanta sa ku dhahay ninkii reer baadiyaha isna saas ayuu yiraahday okay waxa lagu yiraahday waad ka jawaabtay saddexdii su'aalood waxaan xaq u leedahay waxa soo hantiya iyo waxa soo alaaba ninkii reer baadiyaha waxa uu qaatay wixii hantiya idinka iyo shacabkii meesha joogayba ma aysan fahmin ninkii reer baadiyaha ah iyo boqorka waxa isweydiiyeen balse hadda ayaan idin macnaynayaa shacabkii waxa u tageen boqorkii waxayna ku yiraahdeen waxaan rabnaa in aad noo macnaysid wixii aad weydiisay ninkii reer baadiyaha boqorkii waxa uu yiraahday anigu waxaan ku yiraahday hal ilaah baa jira isaguna waxa uu yiraahday ilaahay iyo rasuulkiisa jira okay hadana waxaan weydiiyay buu yiraahday cil baa jira isna waxa uu yiraahday dhul baa jira hadana waxaan weydiiyay buu yiraahday waxaan ku yiraahday dhulka bad baa ku wareegsan isna waxa uu yiraahday wabiya dhexmara okay shacabkii hadana waxa u tageen ninkii reer baadiyaha waa uu xanaaqay waxa uu yiraahday boqorkiinu waa nin akhlaaq xun maxaa dhacay waxa uu yiraahday faris gali aniguna waxaan ku yiraahday laba faris gali hadana waxa uu yiraahday cirka ayaan ka taliyaa hadana waxaan ku yiraahday aniguna dhulka ayaan ka taliyaa waxa uu yiraahday maalintan dhashtay ilaa hadda waan ku raadinay anna waxaan ku yiraahday maalintan dhashtay ilaa hadda waan ka dhudhuumanay waxaan hadda soo gaarnay dhamaadkii muuqaalka ha ilaawin inaad muuqaalkan xaqiisa siiso like iyo comment qurux badan inaad ka bixiso fadlan haddaadan kamid ahayn asxaabta aan jeclahay nagu soo biir oo subscribe saar gambaleelka furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalada quruxda badan aan soo geliyo wassalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.